scholarship kan ay la wadaagi doono waxa bixinaysa hay'adda Mastercard Foundation oo ah qayb ka mid ah shirkadda weyn ee Mastercard soo Mastercard idinku waxa ku taqaanaan in online wax looga iibsado laakiin waxay leedahay qayb loogu talagalay in looga faa'iideysto waxbarashada iyo ganacsiga waxaan doonayaa muuqaalkeena markaan asla eegno Mastercard Foundation iyo sida dadka uga faa'iideysan karaan sida caadiga waxyaabaha keena in ardaydu inta badan Mastercard Foundation ay ka faa'iideysan waxa kamid ah qaabka deeqaha Mastercard Foundation loo bixiyo ka duwan yahay kuwa idinka aad taqaaneen hore qaabka ayaga isticmaalaan waxa weeye ayagu ma manage gareeyaan scholarship-ka ma ahan website inta gashid Mastercard aad application ka dirsan kartid sida website-da intooda badan sameeyaan laakiin Mastercard Foundation sida halkan kugu qoran wuxuu ku sheegaysaa in partners ama jaamacado ayaga la shaqeeya ay jiraan kadib jaamacadaha marka qofka intuu tago uu ka soo apply gareeyo soo jaamacadu iyada marka xor bay u tahay qofka inay ka qaado imtixaan ee process ka marsiiso every jaamacad walbana system gaar ah leedahay marka kadib marka inta ku soo guulaysato ka bacdi way Mastercard marka ayagu gacan ka siin doona waxbarashada marka waxyaabaha ku jira waxa kamid qofka safarkiisa oo kale waxa ku bixi lahayd waxa kamid waxbarashada fiigeeda qofka wadanka intuu wuxuu ku joogo la accommodationska marka waxyaabahaas oo dhan iyada ka kufar garanayso xitaa hadii jaamacadda application ka dirasay lacag ka qaado oo application fee ama admission fee laga qaado xataa dib baa lagu celin doonaa Mastercard ayaga ku siin doona marka information-kaas oo halkan ka akhrisan doontaa marka qaabka u shaqeynaa ayaga waa sida Mastercard ayaga malaha website-kooda inta gashid form aad buuxinayso marka ka garanaysid laakiin waa in jaamacadaha ay ku siinayaan mid kamid marka aad si apply gareyso marka xaggan hadaad timaadeen marka linkigan waxa idin saari doonaa muuqaalka xaqiisa sare laba qayb u qaybsamaya soo qaybtan waa jaamacadaha kala shaqeeya ayaga undergraduate-ka ama degree-ga caadiga ah oo qofka marka iskuulka ka soo baxay uu apply gareyn karo halkan ka hoose sidaad timaadeen waxa heli doontaa masters studies oo aad dadka doonaya marka heerka labaad ee jaamacadda inay kaga baxaan marka xaggan waxa ku liis garsan jaamacado badan marka qofka doonaya degree inuu galo wuxuu iman doonaa halkan kadib jaamacadda uu doonayo marka uu ku qancay uu dooranaya for example imika Makerere University oo kala dooran kartaa kadib jaamacadii ayadoo linkiga ku siinaya linkigaas baa raaci doonta example baan siinaya kabacdi linkiga marka raacdo process-ka xagas ka soo dhamaysanaysa Mastercard ayadu waxaan u shaqo kuma laha just jaamacadda markay kula dhamayso process-ka oo aad steps requirements-ka dhinac dhaafto oo ku guulaysato kabacdi bay Mastercard marka qayb ka noqon doonta inay fee ku siiso scholarship-ka ayada marka way ka yar duwan tahay waxaan isla waxyaabaha keenay kamid tahay inta badan dhalinyarada inay fahmaan scholarship-ka Mastercard marka hadda tusaale baan siinaya qaababka u apply gareyn kartaan for example imika Masterka imaanayna master data maadad waxyaabaha ku arki doonto waxa kamid ah jaamacadaha Masterka ku jira waxa kamid ah jaamacadaha Mareykanka Canada ku yaala halka kuwan Afrika u badan yihiin badankood laakiin xagga marka timaado waxa heli kartaa Arizona State University oo kale Mareykanka ku taalo iyo McGill University so example kan doonay imikina aan soo kamida kan baa ku tijaabinayna so McGill University marka kala furto qofkii doonay inuu apply gareeyo waxa taaban doonta visit website ka bacdin wuxuu ku geyn doonaa jaamacadda McGill oo Canada ku taalo website-keeda marka application xaggaas ka sii wadan doonta adiga hadda halka marka timaado wuxuu ku dhihi doonaa Mastercard Foundation ku furan yahay qofkii doonay marka uu apply gareyn kara so wuxuu ku xirantaa waqtiga adigu aad timaado mararka qaar waxa laga yaabaa inuu xidmo inuu furan yahay marka for example imika this website ama jaamacaddan oo kale waxaan eegi doonaa timeline-ka shaqo ay ugu tala galeen application-ada inay furmaan laakiin marka data apply xaggan waa ka taaban kartaa xagga kale waa ka taaban kartaa how to apply marka apply program markaan dhahno waxay iman doontaa meeshii ugu horeyso sidee baa u apply gareyn kartaa marka koowaad waxa loo baahan inaad eligibility-gaaga eegto mostly website-yada jaamacadaha way kala duwan yihiin laakiin badankood saa in loo diraa laga yaabaa marka jaamacadda McGill oo kale imika tusaale ku soo qaadano marka koowaad waxa loo eligible ma tahay halka taabatid waxa lagu sii doonaa information ku saabsan qofka sidoo uu eligible u noqon kara waxa ugu muhiimsan oo kale wadamadana loo ogol yahay marka Soomaaliya oo kale passport Soomaaliya daystid ku jirta Soomaaliya ka qayb qaadan kartaa waxa kale ku jirta Ethiopia ku jirta iyadana sidoo kale iyo wadamo badan oo Afrika like I think mostly wadamada Afrika oo dhan way ku wada jiraan wax kama qan malaha kaas waxa ay kartaa eligibility waxyaabo kale oo qofka laga doonayo jira xaggan ka akhrisan kartaa hadii master xariisanaysid this program just master way waxa laga doonayo kale inaad haysato bachelor degree shahaada ah sidoo kale bachelor degree-gaaga waa inay la heshaa equivalent requirements marka website-kan oo kale ama jaamacadda marka soo gashid requirement-ka dhan waa inaad wada martaa intaadan apply gareyn sidoo kale xaggan waxaa ka heli kartaa barnaamijyada ama programska furan marka ay jaamacaddan masterkeeda ku siin doonto haddii dib aan u noqon hadda wuxuu lagu leeyahay marka step-ka koowaad waa ka step kale waxa lagu leeyahay waa in aad Mastercard Foundation Scholars Form-ka aad soo buuxisaa like form-ka imika daan furno xagaan uu nooga furmaya wuxuu ku siin doonaa su'aalo ku weydiinaya ku saabsan ma xogtaada iyo
marka dhowr step ilaa 7 step buu ka buuxin doonaa marka every jaamacadna qaab baa jirto ee mastercard oo la shaqeyso ee marka processka application-ka kaaga qaado doonto laakiin muhiimaddu waxa weeye mastercard ayada website-keeda marka joogtid ma lahan meel la buuxiyo form qofka marka uu buuxinayo marka haddii aan ku noqon website-keena just McGill University naga example un baa u isticmaalaynaa any jaamacad adduunta dooran kartaa hadda degree rate ku mid kamid ah dooran kartaa jaamacad soo diraasay programka doonaysa inay haysto soo hubi marka hadda halkan ku soo noqono kaas waa step ka labaad wuxuu ku leeyahay application kaaga marka screening lagu sameeyo waxa laga yaabaa hadhow in lagu weydiiyo waxyaabo kale oo dheeraad documentation soo kale sida shahaadooyinka iyo waxyaabaha marka qayb yar oo muhiim ah inaan tusi for example hada website-ka jaamacadan oo kale application timeline wax la dhuuleeyahay so application timeline ka imika dan Zoom soo gelino waxa arki doontaa September 16keedii training yar oo waxa baxay Zoom online kaas anaga ma uu na soo dhaafay muhiim ah laakiin xagga dan office timika application ku wuxuu furmay September 23keeda like dhowr cisho ka hor buu ahaa laba maalmood ka hor oo malayna muuqaalka markaan duubay programka open uu furay wuxuu xirmi doonaa 25 October marka intaan la gaarin 25 October I think inay ka hadho 30 cisho hadda ka hor in application-ka buuxisid way marka timeline saas buu kugu sii sheegayaa ilaa marka jaamacadda orientation-keeda lagu siin doono qof ku guuleysta August 2025 think sanad kadib marka qofkii uu jaamacadda bilaabi doono marka waxaan doonayaa muuqaalka in aan idin fahamsiiyo Mastercard Foundation iyo qofka qaabka uu apply garan karo linkiga aan siiyay taga kadib eega jaamacadaha markaa furan sidoo kale waxaan doonayaa ku dar jaamacadaha Mastercard ee xiriirka la leedahay partners la ah qaar ba hadda furan qaar ba mar kale furi doono just website-ka jaamacadda markaa gashid waxa eegtaa un application process-ka timeline-ka xiliga uu furmaayo ama haddii kale waxaad samayn kartaa inaad email u dirto jaamacadda oo marka aad ku wareysato xogta ay kuu soo jawaabaan laga yaabaa marka jaamacad walbana waxaa laga yaabaa waqti inay furto application timeline-ka marka depends jaamacaddaas ay ugu talagasho marka hadda example-kan jaamacadda McGill badan tusinay jaamacadaha kale oo eegi kartaan marka waqti badan geli sidoo kale scholarships kan isku daya every scholarship ilaa I think aan intaan garanay ilaa 5 scholarship baa jira oo dadka inta badan Soomaalidu ay helaan sanad kasta 5 xarey una mid ba kaaga soo bixi kara ama waxa laga yaabaa in ka badan heshid ama sanadka daawaysid sanadka dambe heshid laga yaabaa marka muuqaalkeena halkaas buu ku eegay waxaan doonaynaa in sharxo Mastercard Foundation sida ugu faa'iideysan kartid wixii su'aalaha qabta comment inoogu soo reeb assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh